Shalay waxaynu soo upload gareynay cashirkan. Runtii cashirkan linkigan waa ka maqnaay. Hadda ayaan kusoo darnay. Linkigan waa Charts of Accounting-ka ayagoo PDF ah. Linkigaas waa ku dhufan doontaa. Waxaa ku keeni doonaa website ku keeni doonaa. Website-kaas ayaa kala degi doontaa asaga oo PDF ah. Waana Charts of Accounting-ka ka maqan akoonada cusub ee lagu soo dari doono. Kambaniga akoonada cusub ee lagu soo dari doono waa. Marka meesha ku dhufo linkigaas waxaa ku geeni doonaa website-kan ku keeni doonaa. Waxaa ku dhufataa meeshan download ku dhufo akoonada oo dhan waa kuwaana haddii si ku degsanin meesha download ku dhufo la soo deg Excel-kan waay intaana akoon ayaa lagu soo dari doonaa. Mid walbana wuxuu leeyahay account type-kiisa kuwi bank and cash ah waa kuwaana kuwi current asset waa kuwaana current asset waa kuwaana kuwi equity ah oo dadka oo wax ku soo darsadeen oo shareholderska kuwi income ah iyo kuwi expense ah. Marka akoonadan kusoo dar marka qaabka ugu soo darisid aan kugu soo celiyo waxaad tagtaa maxaa yiraahdaa Charts of Accounting. Charts of Accounting markaad tagtid hadda waxaynu kusoo darnay cash on hand waa kusoo darnay. Salaam Bank waa kusoo darnay. Waxaan kusoo daraynaa Habshiil waxaa leedahay meeshan Habshiil account type-kiisa waxaa waaye Habshiil 3 xalaad eber waana meel hadda meesha intaa ku dhufto haddaa meel banaan ku dhufto asaa ii saxaay ku dhufo inta ku dhufo bank and cash yes bank and cash okay waayo dooran la ayaa bank and cash okay current asset u doortay no internetka aad iga xun hadda bank and cash u doortay meeshas oo iconkaas ku dhufan doontaa save ma ka bixin meeshaada la joog mid kale ku dhufo waxaa abuurtaa Premier Bank account numberkiisa waxaa waaye 1120 meeshaan account type-ka bank and cash automatically asaas gelinayo save waxaa kaloo lagaa rabi doonaa akoonada inaad sameysid akoonka ku xiga waxaa waaye new day akoonkan loo yaqaano inventory waxaa waaye koodkiisa waa 1230 inventoryga asaaba hadda noo sheegi doono inventory waa current asset receivable ma current asset qadka iga xun current asset inventory markii la joogo qaybta variation accountiga waxaa lagu xiraa stock variation lagu xiraa waxaa lagu xiraa akoon loo yaqaano stock variation lagu xiraa oo typekiisa uu asset yahay so meeshan waxaa noogu raadisaa stock variation stock no results waxaa lagu xiraa akoonkan stock variation la dhaho lagu xiraa meeshaas oo account variationka waa save gareyneynaa waxaa kaloo laga rabaa inaan sameyno laba akoon oo loo kala yaqaano stock interim receipt oo akoon numberkiisa uu yahay 40 waana current asset iyo akoon kale oo aad sameynaysaa wuxuu yahay new day stock interim delivery waa meeshan markaasina meeshan akoon numberkiisa waa 1250 account type-kiisana waa kana save leh waxaa lagaa rabaa markaan inaad sameysid akoomada loo yaqaano equity-ga ama akoonada oo dadka saamiga ku darsaday kambanigan ama iska leh
akoonka koowaad oo equity ah waxaa loo yaqaanaa software capital waana 110 3100. meeshan waxaa ka dhigay equity asaaba noo dooray save dheh. midka labaad wuxuu noqonayaa control c noo dheh new one. meeshan capitalka waxaa ka dhigaysaa drawing waa 31 equity waaye save dheh. meeshaas ha hilmaamin. akoonka kalena waxaa waaye oo dadka wax ku darsaday waa fara yare capital waa 3200 equity waaye save garay intaana ku garay iyo account dheh paste ku dheh sina waxaa raacaysaa drawing waana equity save garay. so equity waa ka baxnay akoomada waxaa sameynayna markaan income-ka oo lacagaha na soo gelinayaan. akoonka koowaad waxaa loo yaqaanaa product sale akoonkiisa waxa waaye 4,000 waana income waaye okay save garay. midka kalena waxaa loo yaqaanaa sales discount waa 41 everywhere income waaye waa save garay. so akoomada income-ka ah waa ka baxnay hadda waxaan gelaynaa akoonka ugu dambeeya oo waxaa waaye purchase discount oo expensive waaye waxa aan soo iibsanayno discountka markii lanoo sameeyo haddii naloo sameeyo nambarkiisa waxaa waaye 6400 waa expensive. hubin activity ma jirtaa activities ina save garay. so meeshaas hadda waxaa kusoo dhameynay dhammaan akoonadii laga rabay oo dhan. so ayadoon la sixin charts of accounting-ka shaqo kale lama geli karo maadaama charts of accounting akoonada shirkadda ay leedahay dhan lagaa rabo inaad kusoo dirtid si journalka loo geliyo oo xisaab fariisinta loo sameeyo. so marka waxaa ku qasbantahay inaa akoomadii aad la soo degtid ayagoo pdf ah sida hadda usoo gelino oo kale haddii problem kugu qabsadana dhanka commentiga nagula wadaag akoomada marka sidaas usoo geli. waxaa noogu xigi doona inaan settingka ansaxno then aan sameyno journalen xogta shirkadda lacagaha iyo kabitaalada dhan aan diiwaan gelino. so cashirka xiga ayaan ku sharxi doonaa insha allah.